in ka badan 3.5 milyan oo dumarka Hindiya ka mid ah ayaa isugu soo baxay gobolka Kerala iyagoo dhigaya banaanbaxyo oo ay ugu soo horjeedaan xadgudubyada ay ka kulmaan dumarka dalkaasi. Dumarkani banaanbaxaya ayaa soo bandhigay dowlatus gacmo fidin ah kaas oo ay ku muujinayaan sinaanshaha ragga iyo dumarka. Barnaamijkan cajiibka ah ee gacmo fidinta ah ayaa looga goon leeyahay sidii si ficil ah loogu muujin lahaa sinaanshaha labka iyo dhidiga, sida ay warbaahinta maxalliga ah ee ka howlgasho dalkaasi Hindiya ay ku waramayso. Qaar ka mid ah dumarka oo la hadlayay wargeyska Indian Times ee ka soo baxa dalkaas ayaa sheegay in ay sii wadi doonaan banaanbaxooda ilaa dumarka Hindiya ay ka helaan xuquuqdii ay xaqa u lahaayeen. Sidoo kale wargeyska Times of India ayaa ku waramaya in dibadbaxani noocan oo kala ah uu yahay kii ugu horeeyay ee lagu qabto dalka Hindiya ayna ka qayb qaateen in ka badan 3.5 milyan oo ruux. Hay'adaha u dooda xuquuqda bini'aadamka ayaa sheegaya in ugu yaraan 83% uu gaaray heerka kufsiga dumarka ee dalkaasi Hindiya. Sanadkii 2016 kaliya ayaa qiyaas ahaan dumarka la kufsaday dalkaasi Hindiya ay ka badan yihiin 38,000. Arrintaas oo ka dhigan in weli heerka kufsiga uu aad u sareeyo dalka Hindiya. Daraasad laga sameeyay sanadkii 2018 ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday in dalka Hindiya uu kaalinta koowaad kaga jiro dalalka ugu liita ee dumarka oo ay ku noolaadaan.